diploma halkan baa lagu keenayaa muuqaalkan waa daawan kartaa YouTube ayaad ka daawan kartaa halkan waa ka daawan kartaa oo isagana waxa lagu sharaxayaa wax tahay graphic design diploma iyo maxaa lagu baranayaa iyo sida loo barto marka haddii aad hoos aad wax arkaysaa optionska aad dooran kartid si aad lacagta u bixisid oo iskaga diiwaangelisid koorsadan optionka ugu horreeya slope diploma waa $25 baa bixinaysaa bishii adigoo halka koorsanka ku qayboon heli doona optionka ku xiga asna waa speed diploma asna waxaad bixinaysaa waa $50 bishii ama waxaad bixinaysaa $100 oo express diploma ah ama waxaad dooranaysaa one time payment haddii marka aad haysid oo markaas ayaad wada bixinaysaa koorsooyinka tii marka aad rabtidna halkan hoose ayaad hadda dalbo ka leedahay oo halkaas baa ka dooranaysaa haddii marka aad hoos uga sii socono dhammaantoodna isku wax baa lagu baranaya laakiin kisa lacagta unbaa kala duwan waqtiga aad ku bixinaysid haddii marka aad hoos aad waxaad arkaysaa toolska aad ku baranaysid halkan waxaa ka mid ah Adobe Photoshop oo in badan aad maqashay Adobe Illustrator Adobe InDesign iyo Canva waa toolska aad ku baranaysid halkan haddii marka aad sii dhaafto waxaad arkaysaa waa koorsooyinka meeshan lagu baranayo waxaa ugu horeeya waa koorsadan la yiraahdo Adobe Photoshop CC Beginner waa haddii koorsadan aad iibsatid marka ugu horeysa waxaad ku baranaysaa waxay tahay aaska Photoshop muxuu yahay maxaad ku baranaysaa muxuu qabtaa iyo toolska ugu caansan marka baad ku baranaysaa halkan koorsada ku xigta ayna waa koorsada Adobe Photoshop CC Intermediate to Advanced la yiraahdo waa in wax ku baranaysaa waxay tahay laga soo bilaabo heerkii markii hore aad joogtay koorsadii hore ilaa iyo heer ka sii sareeyo oo ilaa iyo toolska caanka ah baad ku baranaysaa iyo kuwa advanced-ka ah waa ku baranaysaa halka koorsada ku xigta waa koorsada la yiraahdo ayna Adobe Photoshop for Graphic Designers ayaduna waa koorso advanced level ah ama high level ah oo waxaad ku baranaysaa inaad project badan ku sameysid baad ku baranaysaa halkan iyadoo lagu sameyn doono in ka badan dhawaad 100 projects oo kala duwan oo mid walba brand gaar iyo shirkad gaar ah iska leedahay marka saddexda koorso oo Photoshop ay ku dhamaadaan baa waxa ku sii xijinaysaa koorsada la yiraahdo Adobe Illustrator waa ayna bilowga Adobe Illustrator ah waxa uu qabtay iyo waxyaabaha ku fiican yahay iyo maaragtay toolska ugu caansan aad ku baranaysid qaybtan ugu horeysa oo koorsada koobaad ah Adobe Illustrator koorsada labaad Adobe Illustrator ayna wax ku baranaysaa waxay tahay waa project based oo ayadana waxaad ku sameynaysaa project aad u badan oo hadaad fiirisid 20 saacadood ka badan bay soconaysaa oo waxa lagu sameynayaa ku dhawaad 100 project oo kala duwan mid kasta funder gaar iyo shirkad gaar ah iska leedahay markii intaas ku dhamaada waxa ku xijinaysaa waxay tahay koorsada la yiraahdo Adobe InDesign waa in waa software iska leedahay shirkadda Adobe oo lagu sameeyo dokumentiyada iyo qaababkaas waxyaabahaas la daabici rabo baa lagu diyaariyaa ayadana si buuxda baad u baranaysaa min bilow ilaa dhamaad adiga oo project tira badan ku sameyn doona Adobe InDesign software-ka la yiraahdo markii taa ku dhamaato waxa ku sii xiga waxay tahay koorsada la yiraahdo Canva the ultimate tool asna waxaad ku baranaysaa waxa weeye Canva maxay qabataa Canva waa web based tool oo marta asna sidoo kale graphic design lagu sameeyo balse asagu ah maaragtay website aad booqanayso halkaas aad ku sameynaysid walow application asaguna uu leeyahay ayna waxay tahay waxay qabato iyo waxay ku fiican tahay intaba midlo ilaa dhamaad baa ku baranaysaa koorsadan marka haddii aad fahanto waxa lagu baranayo graphic design diploma haddana su'aasha ah sidee baan iskaga diiwaangeliyaa ayaad isweydiin kartaa haddii markaan ku laabno qaybihii hore lacagahan mid aad haysid marka la dooranaysaa kadibna koorsada ayaa lagu wada fasaxi doonaa haddii marka hadda aan doorto qaybta one time payment oo $300 hal mar aan wada bixinayo hadda dalbo ayaan leeyahay mees akoonkayga iga sameysmi doona ayaa la keeni doonaa haddaad fiiriso marka qaybtan bidix waxaad gelinaysaa waxa weeye xogtaadii akoonka oo hadda waxa ugu horeeya waa meeshan la yiraahdo magacaaga iyo magaca awowga hadda waxaan gelinayaa Mukhtaar oo magacayga ah iyo magaca aabahay baan gelinayaa waxa ku xiga waxa weeye magaca awowga oo halkan waxaan gelinayaa maaragtay magaca awowgii baan gelinayaa halkan waa wadanka marka aad joogtid oo Soomaaliya dooranaya adigu laakiin wadanka aad joogtid marka baad dooran kartaa adoo meesha ku qoray magaciisa ama meeshan ka dooranaya qaybtan hoose waxa ku sii xiga waxa weeye wadada marka aan deganahay anigu waxaan leeyahay wadanka dooranaya aan jirin waxaan leeyahay WB Street adigu wadada saxda baad dooran kartaa waxaan dooranayaa ku xiga waxa weeye gobolka aan joogo marka anigu hadda waxaan dooran karaa kale bari baan dooran karaa ama waxaan dooran karaa la yiraahdo Mudug ama waxaan dooran karaa hadii aan u baahanahay Galgaduud waxa ku sii xiga marka waa zip code ama post code hadii wadan post code la aad joogtid waxaad dooran kartaa waa post code-ka wadankaas meesha ku qoran kartaa hadii marka aad joogin wadan post code lehna waxaad dooranaysaa furaha wadankaas tusaalahan furaha Soomaaliya kale waa 252 marka waan ka sii soconayaa waxa ku xiga waa WhatsApp lambarka aad isticmaashid haddana waxaan gelinayaa lambarkayga caadiga baan gelinayaa oo gacanta oo WhatsApp aan ku isticmaalan gelinayaa waxa ku sii xiga marka asna wuxuu noqonayaa waa emailka meesha aad gelinaysid emailka fadlan ha noqdo email markasta aad isticmaashid oo kuu shaqeynaya oo aan kaa lumin waayo bari ka maalin haddii akoonka wax ka qaldama meesha laga saxiilaa waa emailkan ana hadda marka waxaan gelinayaa email aan aqaano oo ii shaqeynaya shaacir123 baan gelinayaa @gmail.com inta markaan geliyo waxa ku sii xiga waa account username magacaaga oo kooban ama haddii aad leedahay naas macquul ah baad meeshan gelinaysaa hadana marka waxaan gelinayaa shaacir
123 aan gelinayaa oo username-kayga baan ka dhiganayaa kan waxaan gelinayaa waxa weeye password-kayga tusaale password adag oo kale baan dooranayaa password adag baan doortay kadib marka saas marka u dhameeyay qaybtan saas ay ku dhameystiranto kor baan u laabanaya haddaad fiirisid marka qaybta midigta ah halkan waa waxaad dooratay koorsada aad dooratay baa meeshan uga jeedaa halkan waxa weeye qaybta lacagta aad u bixinaysid haddii marka aad isticmaashid adeegyada mid ka mid ah haddii EVC ama SAD ama Sahal aad isticmaashid waxaad dooranaysaa waxay tahay halkan baad dooranaysaa kadibna halkan baa waxaad gelinaysaa lambarkaaga gacanta marka aad isticmaalaysid baad meesha gelinaysaa marka markaad timaado hoos baa u soconaysaa halkan marka waxaad ku arkaysaa waxay tahay sida ay koorsooyinka iskugu xigaan waxay leeyihiin lambaray leeyihiin 1 2 3 4 5 6 7 bay leeyihiin oo sida maarta ay kula horeeyaan baa loo kala baranayaa Adobe Photoshop CC beginner baa ugu horeysa Adobe Photoshop CC intermediate to advanced baa ku xigta ilaa aad ka gaadhid Canva koorsada toddobaad ah waxyaalo marka waxaan isla fiirinaynaa waxyaabaha markii aad koorsada dhex mariso waxyaabaha aad ku baranayso qayb kamid ah isla fiirinaynaa maadaama practice aad u badan ay yihiin oo aan soo koobi karin qayb kamid ayaan fiirin doonaa halka marka waxaad ku arkaysaa assignment dad fiiriso halka waxaad ku arkaysaa waxyaabaha lagu sameeyo Illustrator qayb kamid ah oo waxyaabaha meesha ku jira qaar ana sameeyay laakiin waxyaabaha macalinku aad la sameyn doonto waxa kamid ah masaajidkan baa kamid ah waxyaabaha macalinku aad la sameyn doontid wadaad fiiriso dhamaantood graphics la isku soo aruuriyay kuma jiro wax haba yaraatay sawir caadi loo qaado kamarada lagu qaado kuma jira graphics la isku soo aruuriyay marka waxyaabahaas dhan ku sameyn doontaa meeshan marka aad joogtid calaamadan kale garbaha shinida oo kale meesha ku sameyn doontaa markii aad dhex joogtid Adobe Illustrator Photoshop asana waxyaabaha lagu sameeyay halkan bay ku jiraan oo hadaad fiirisid halkan waxa ku jira access 1 iyo 2 iyo 3 meesha ku jira daan 2 dhex galno waxyaabaha meesha lagu sameeynaya diyaaradan kale oo hawada haadaysa meesha lagu sameeynaya oo satan bay kugu soo muuqanaysa waxyaabo badan oo kale ayaa lagu sameeyay waxa kamid ah meesha sii galno cutubiyada badan meesha ku jira dhan baa kamid ah halkan waxa kamid ah caanahan baa kamid ah oo niida la yiraahdo meesha lagu xayeysiinayo waxa kale kamid ah billboard-kan oo isna cabitaan lagu xayeysiinayo mango la yiraahdo waxa kale kamid ah alaabtan kale kamid ah oo billboard-kan maqaayad aysan lagu xayeysiinayaa kamid ah waxyaabaha ku sameyn doontid weeye Photoshop markaad dhex maraysid waxa kamid ah roll up-kan kale kamid ah oo sata asna kugu soo kici doona markii aad soo furtid oo PSD ga soo furtid waxa kale kamid ah kabta kabahan ayagana la xayeysiinayo oo satan ayagana kugu soo furmi doona markii aad fiirisid qaabka ay u muuqdaan iyo hab dhismeedkooda waxa kale kamid ah furniture asna la xayeysiinayo lama soo koobi karo aad bay u badan yihiin aniga markii aan baranayay koorsadan aan bartay kadib ana waxa jira exam anigu aan sameeyo anigu keligii aan diyaariyay baa jira wadaan qaybta AI-ga ama Adobe Illustrator ka hadaan fiirino gaarigan baa kamid waxyaabahan sameeyay aniga oo gaarigan hadii aad fiirisid ma aha sawir la qaaday ma aha waa dhamaantood waa graphics la soo aruuriyay hadii aan u baahdo waa kala qaadi karaa mid kasta gaar baan u jiidi karaa dhamaantood waa mid loo geeyay graphics loo geeyay dhamaantood ka kooban yihiin dabadan iyo madaxan iyo geedka wax saas bay ka wada kooban yihiin hadii hadda markaan isku celceliyo dhamaantood waxa kamid waxyaabahan sameeyay circle-kan baa kamid ah asna looga aan diyaariyay ah waxa kamid ah butterfly-gan asna aad moodid in sawir caadi loo qaado uu yahay balse graphics ku kan keenay oo dhamaantood mid ku shaqada aan ku jiro mid kasta gaar loo keenay baa kamid ah iyo kuwa kale adeegna aad u badan isla Photoshop asna waxyaabahan ku sameeyay waxa kamid ah qaybtan baa kamid ah sawirkan baa kamid ah sawirkan markii hore satan buu ahaa oo dadkan badan baa ka buuxay kadibna si nadiif ah baan uga saaray dadkii kale meesha ana oo ku soo reebay gabadhii kaliya sawirkiina wax dhaawac aan gaarsiin waxa kamid ah horba certificate-kana diyaarshay baa kamid ah laptop-kana kamid ah iyo kuwa kale ayaguna aad u badan hadaba sidoo kale waxyaabaha aan diyaarshay oo exam-kayga aan ku diyaarsaday waxa kamid ahaa Adobe InDesign document aan ku diyaarshay asagana